شيء أديركيد أنت هدي لو يويلك إيدر أطو ولا الكيد دلي مثك أديركيد دلي إيا ضدك نوع عاسى أيا ولاية قادم وهي علماء مركا ليه إنك قدال هدي أنت لو وايو إيا إنها كسي دو أو دنبا إن أنت ولاية أبتغير وقادم كرا ولالك كوهو يدا أهنا وقادم كرا أنكوها برأهين إيه كوهو يدا كليا لكن مركز ولاية وحا إسكالة ضدك حق أعطاها كسعودة نسبك حق أعطاها كسعودة أيا ولاية إسكالة sidaas in la garto ayaa la doonayaa dadkaas haddii la waayo gaali islaamiya ayaa mahrinaya haddii kuwaasoo dhan la waayo dariska islaamka ayaa inanta bixinaya taas ayaa la doonaya marka inanta weligeedii haddii la waayo shuruuddii welinimada qofkii laga helay oo shuruudda oobsaday masalan aabbaheed weeyaan waa la waayey maxaa la samaynayaa wilaayadu waxay u wareegaysaa qofka ayada yani ehel ahaan u xigay halkaa jooga waa shardi inaan qofka wilaayada lala xiriirin karin war dadka islaamka ah ee ayagu inay guursadaan doonayo war waxaad ogaataan walaalayaal inaan loo baahnayn guurku inuu iska dhaco weli la-aan inanta waa in lala xiriiro aabbaheed haddii in lala xiriiraa ay mustaxiil noqoto ama ou dhinto waa in lala xiriiraa walaalkeed haddii lala xiriiri waayo ay adkaato awowgeed baaba ka horreeya walaalka haddii la heli kara ha lala xiriiro awowgii haddii la waayo adeer ha lala xiriiro dadkaas gabadha ehelkeeda oo aad ugu dhow in lala xiriiro hadday mustaxiil noqoto ama la waayo qof kale dad u xigaa ha la raadiyo sidaas ayaa la doonaya in lagu socdo waa shardi dadka wilaayadaas qaadaya oo lala xiriirayaa inay muslimiin yihiin gabadha aabeed haddaw taariga usan salaada dukan lala xiriiri maayo haddaan walaalkeed dukan lala xiriiri maayo salaada allah haddaysan dukanba oy diinta alla ka soo horjeedaan ee dadka ehelkeeda kamida kuwa salaada dukadoo diinta alla ogol ayaa lala xiriirayaa sidaas waxaa laga garanayaa nusuusta ee ha lagu socdo oo allaha laga bogo subxaanahu wa tacaala haweentana weli la-aan iskama maharsanto ee rabbi ha laga bogo subxaanahu wa tacaala haddii inanta la waayo dadkii wilaayadeeda lahaa ama ay fogaadaan ee lala hadlo ee ay wilaayada qof kale u wakiishaan way bannaan tahay waxay isku waafaqeen culimmada islaamka kulligood xaqad walba oo qofku asaga uu samayn karo inuu qof kale u wakiishaa way bannaan tahay oo inan wilaayadeed qofkii lahay hadduu qof kale ku wareejiyo ee uu yidhaha inantaasu ninkay kuu keensatay raalli ka tahay si ee uu yidhaha asna waan ka aqbalay wilaayada qofkaasaa mas-uulkaa oo qaaday nikaaxuna wuu ansixiyaa haddii sidaa lagu mahriyo marka arrinka noocaasa in lagu socdo ayaa la doonayaa wakiilashada qofka la wakiilanayo waxaa loo shardiyaa inuu nin yahay waxaa loo shardiyaa inuu caaqil yahay waxaa loo shardiyaa inuu qaangaar yahay waxaa loo shardiyaa inuu xur yahay waxaa loo shardiyaa qofka wilaayadeeda la qaadaya hadday muslimo tahay inuu ninku muslim yahay wilaayada qaadaya oo la wakiilanayo intaa wax kamid a haddii la waayana guurkii waxau noqonayaa mid derbiga ka dhacoon waxba ka jirin aad iyo aad bay u dhibaato badan tahay arrimaha maanta ka jira xagga guurka waayo guurkii waxau noqday mid asaga dhagu qaab daran oo aan diintaba waafaqsanayn sidaas ayuu noqday maanta siyaalaha uu ku noqday waxa ugu horeeya inanta iyo inanka isdoonaya marka horeba xagga diinta iskuma doonaan ee waxaa la ysku doonaa xoolaha iyo inantoo xagaaran iyo waxyaalo kale ee diin in laysku qadariyo way dhimatay taas waxaa ka ratimay guurka asagaa inuusan sharcigaba waafaqin midda kale dhibaatada kaloo timid waxay ka timid xagga waalidkii waxay noqdeen kuwa dhib badan oo khayrkooda ou yar yahay inan markaad ka doonata reer hadday diintaada iyo islaamnimadaada iyo wanaaggaaga ee yaqaaniin markaad u tagto u kuleeyahay odayaal baa la siiyaa inanta odaya i keen war inanta noodaba guursana mase anaa guursanaya odaya waaye ma inanka inanta kaa soo doona siidid war odayaasha la hadlayaa khayr waa dad khayr darradii oo dhan yani khayrka o dhan ka fogaaday oo khayr darro ku sifoobay ha inanta odayaal baa bixiya odayaalna way doonaan baa lagu leeyahy war xaggee laga helay inan ay odayaal dhaqaan nin baa dhaqaya inanteed haye inanta si aabaheedbaa mas-uulka ee bixiya xaggee ka keenta waxa kan waa arrintan diintu xaggay ku qortay lama hayo waa caado jaahili oo meel ay ka timin aan la garanayn haddii marka aada alla aada odayaal geyso inantii lagu siiyo maxaa lagugu odhanayaa waxaa laleeyahay aawa lacagtii sooriyada aawa tii gabaatiga aawa tii abtiga aawa tii islaanta gabadha dhashay xaggee laga keenay yaa yidhi dadka iibsada rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiis saxiixa waxau ku yidhi 3 qofood ilaahay lama hadlo dembigana uma dhaafo cadaab aliimayna leeyihin 3 qofood waxaa kamid ah qof xur ah axadkii iibsadee lacag inta kala baxa lacagtaa cuna alla naxariistiisa ma arkow leeya haddaba dadka ama ragga
gabdhaha laga soo doonay ku xidhaya intaas oo dhaqaalaa in laga bixiyo inanta ay dhaleen inay iibsadeen ha ogaadeen oy lacagtay ku iibsadeen cuneen ayna xaaraam tahay amaa ninka inanta guursanaya waxaa waajib ku ah reerka uu inanta ka guursanayo inuu u dhaqaaleeyo sida waalidkii oo kale hooyadii iyo aabbihii waxuu heli karaa asagaa siinayo ay waajib ku tahay laakiin xoolaha aad hablaha ku xidhaysaan laydinka soo doonay odayaashow ka tanasula haddaad diin leedihiin allana aad ka cabsanaysaan haddii kale waxaad ku haydaan sooryaa la bixi jira iyo gobol gabar laguma bixiyo aan lacag lagu bixinayn sidaa dhaha waayo waxaan maalin walba maqlaya ayadoo laleeyahay ha gobol qallalan inan laguma bixiyo haye yaa ku yidhi gobasha soo qoy biyo ku daadiya haddaad qoyaan doonaysaan ilahay laga bixiyo ragga ayagu dumarka guursanaya waxaa laga doonayaa reerka ay ka guursanayaan inay wanaajiyaan oy dhaqaaleeyaan laakiin inta maqashaan yaan lacag laga qaadanin oon dadka xoole lagu xujaynin reerka inantu ka dhalatay ha ku qaylinina hadal xunna ha kula hadlinina ayadoo jirto muddada dambe in wax laga sheego dadka diinta wax ka garanaya oo la yidhaaho waa bukala oo dumarka ay guursadeen rag yani dadka dhalay ma wanaajiyaan haddana sharciga islaamku sidaa ma ogole arrintaa ha la iska joojiyo ninkii asagu inan guursada waxaa ku wanaagsan inuu reerkeeda ixtiraamo waxuu heli karana uu u qabto sidau aabbihii iyo hooyadii u dhaqaalaynayo oo kalena uu u dhaqaaleeyo taasi waa xuquuqda la isku leeyahay laakiin midda ku saabsan dhaqaalaha aan ka soo warrannay oy odayaashu gabdhaha ku xidhayaan taasu xaaraam weeye sharciguna ma ogola ee sida diintu tahay aan u dhaqanno allana aan ka cabsanno subxaanahu wa tacaala inanta marka la bixinayo waxaa la doonayaa ninka la siiya inuu kufu yahay kafaa'ada oo islaamku ogol yahay waxa weeyaan xagga islaamnimada maxaa yeelay islaamka dadkiisu kulligood waa walaalo axad walba oo muslimiinta ka midana axadka kale laa'iq ayuu u yahay inuu guursado lana noolaado rabbina qur'aanka wuxuu ku yidhi asagoo noo caddaynaya muslimiintu inay sinan yihiin oy isku kuf yihiin innama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta ayaga oon baa walaala ah sida ay xaqiiqadu tahay rabbi ma kala qaadin ee wuxuu noo sheegay mu'miniintu inay walaala yihiin haddaba nin yahow muslimka ahu haddii inantaada uu soo doono wiil islaam ah oo akhlaaqdii iyo diintii wax lagu dhaqi laheed lah ha ku xujaynin qabiilnimo iyo xoolo haddaad iimaan leedahay maxaa yeelay mu'miniintu waa walaalo nin yahow muslimka adiguna inanta aad guursanaysid waxa aad ku raacdaa ha noqdeen iimaanka iyo wanaagga iyo siday diinta ugu socoto inan yahay muslimadda adiguna ninka aad raacayso ha noqdo waxaad ku raacdaa inuu diinta ku fiican yahu dabciga islaamnimada leeyahay taas ayaa la doonayaa haddaad fuli weydaan ka bixi maydaan cidhiiri iyo dhibaato allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi asagoo la khidaabaya dhammaanba muslimiinta fankixuu maa daaba lakum min annisaa rabbi wuxuu noo sheegay inaan dumarka ka guursanno wixii annaga diib noo ah oo idil haweenkii lama kala qaadin qabiil looma qaybin midabna looma qaybin ee kulligood waxaad adigu yani aad doonaysid inaad ka guursatid oo sharcigu ku ogolaaday ayaa laguu sheegay haddaba muslimiintaw dadaala oo rabbigiin ka cabsada oo ashyaada kala joojiyo derbiyada la wareegaysaan gabadha ayadu ah muslimadda oo aad u hagaagsan ee cafiifadda ah ninka faasiqa laguma deri karo haddaysan ayadu raalli ka ahayn laguma ijbaari karo faasiqa iyo faasiqadda way isguursan karayaan hadday isdoonayaan laakiin qof isagu wanaagsan oo iimaankiisa oo muuqanayo iyo qof fisqi iyo macaasi waaweyn lagu arkayo in laysku qasbo lama qur-aanka wuxuu ku yidhi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacdum awliyaau bacdin ragga iimaan kale iyo dumarka iimaan kale gobolkood gobolka kalow ilaaliyayaal u yahay waa dad is-ilaalinaya oo isdhowraya mar kastaba sidaas ayuu allah yidhi subxaanahu wa tacaala mu'miniinta ayaga oon baa walaal oo wanaagga ku wada socda kafaa'ada la fiirinayaa waa xagga istiqaamada iyo xagga akhlaaqda shaqada lama fiirinayo waxyaalaha ay fuqahada gobolkood yidhaahdeen nasabka waa la eegayaa carab iyo cajam sancada waa la eegayaa sanaadnimada waa la eegayaa daliil looma hayo waayo rabbi qur'aanka wuxuu ku yidhi inna akramakum cinda allahi atqaakum qofka idinkugu karaamada badan waa qofka idinkugu xabsida badan leh axad ka karaamo badan ma jiro ilaa xabsida alla ma ahane xabsida allana waxaa la yidhaha qofku inuu guto xaqa uu alla kuleeyahay iyo xaqa ay dadka iyo makhluuqa kaleba kuleeyihiin qofku waa inuu xaqa rabbi guto xaqa bani aadamkana guto markaas ayuu taqiyahay allana ka cabsaday rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiid xasana oo tirmidi ku sugan ku yidhi
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه.